waa naabilyoonkii Afrikada dhexe iyo bahalkii cunay hilibka dadka kaas oo si aan qarsoodi lahayn u sheegay in hilibka dadku macaan yahay maalin keli ah ayuu soo galay kuna jiray diinta islaamka Anwar Saadaadkii Masar ayuu xiriirka ugu jiray sabab aad loola yaabay sidaas oo kalena waxa uu qiyaanay Muammar al-Qaddaafigii Liibiya kani waa muuqaal ka sheekaynaya sida ay u dhacaan una dhammaadaan keligitalisyada qooqa halkan waxaa ka socda xaflado iyo qoobka ciyaarka dhacaya albaabka aqalkii madaxtooyada u ahaa oo uu ka cararay Jean Bedel Bokassa waxa uu xukumayay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe intii u dhaxaysay 1966 ilaa 1979 Jean Bedel Bokassa waxa uu ahaa askari hore oo ka tirsan ciidanka Faransiiska qabashada awoodda iyo xukunka ayuu ugu haraadanaa si waali ah sidaas awgeed waxa uu hoggaamiyey fallaago iyo jabhado dagaal ku hayay dawladda markii uu xilka iyo talada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe qabtayna waxa uu isu boqray inuu yahay madaxweynaha jira oo jooga weligii bishii ugu horreysay ee xukunkiisa waxa uu isku taxay iskuna harqiyey bilado iyo xidiga gaaray tobannaan waxa ku filnaa waayey in loogu yeero darajada madaxweyne sidaas awgeed waxa uu go'aansaday inuu u dhaqmo sidii uu u dhaqmi jiray boqorkii iyo askarigii uu jeclaan jiray ee Louis Napoleon Bonaparte sidaas daraaddeed Jamhuuriyaddii Afrikada Dhexe waxa uu u rogay boqortooyo isagiina waxa uu isu caleema saaray inuu yahay boqor aan dhicin Bokassa waxa uu dhigtay xaflad uu ku sheegay inaan isaga dabadii la dhigi doonin 4 meelood meel ka mid ah miisaaniyaddii dalka waxa uu ku qarash gareeyay xafladdaas sanadkii 1977 Jean Bedel Bokassa madaxa waxa uu saartay taaj ka samaysan dahab oo ku fadhiyay 5 milyan oo dollar ul dahab iyo xariir isugu jirta oo gaartay 5 kilogram ayuu ka dhigtay gacan qabsi waxa uu samaystay kursi dhammaantiisba dahab ah ilaalo iyo kolonyo boqortooyo Bokassa waxa uu ahaa nin wax walba ku talax taga xitaa guurka iyo dhasha waa ninka keli ah ee haystay madhabta Kaatooliga ee guursaday dumar aad u fara badan carruurtiisu waxa ay gaareen heer ay is aqoon waayaan Jean Bedel Bokassa waxa uu ahaa kawaanlo weyn oo qoorta ka gura mucaaradka ka soo horjeeda golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayuu u sameeyey casho sharaf kadib markii ay ka dhergeen cuntadii ayuu u sheegay in hilibka ay cuneen uu ka mid ahaa wasiir ka tirsanaa golaha xukuumadda inkasta oo uu khiyaanay haddana Jean Bedel Bokassa waxa uu taageero dhaqaale weydiistay Muammar al-Qadaafi ha yeeshee Qadaafi ayaa faray inuu qaato diinta islaamka si uu ugu furo qasnadihiisa oo waagaas lacagi ka buuxday Bokassa isaga oo u dan leh qaadashada lacagtaas ayuu qaatay diinta islaamka magaciina waxa uu ka dhigtay Salaaxudiin Axmed Bokassa balse isla markii uu ka gudbay xadka Liibiya isaga oo sita boorsooyin lacag ah ayuu ku noqday madhabtiisii Kaatooliga Jean Bedel Bokassa gaari faraskii boqor Ismaaciil Baasha ama Qadawey Ismaaciil ayuu weydiistay Anwar Saadaad si uu ugu xayeysiiyo xaflad uu isaga dhigayo boqor alla maxay war jacaylka iyo jamashadu wax badan nagu qaaday inaan aragno jawaabtii Anwar Saadaad siiyay Jean Bedel Bokassa Saadaad waa diiday dalabkaas sidaas awgeed naabilyoonkii Afrikada Dhexe xiriirka ayuu u jaray Masar waxa uu ku noqday dalkiisa isaga oo aad u caraysan 100 arday ayuu toogtay oo laayay Bokassa qaarkood waxa ay ka hooseeyeen da'aadda 15 jirka dembiga keli ah ee ay galeen waxa uu ahaa inay diideen xidhashada dharka keli ah ee Bokassa u yiqiin inuu mideeyo dadka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dhan aad qaali u ah ayna soo saarto warshad ay lahayd mid ka mid ah xaasaska Bokassa markii
bahalnimadiisu gaartay meel aan xuduud lahayn ciidanka xoogga dalka ayaa u dhaqaaqay in 5 farood iyo calaacal looga eriyo xukunka madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas Valéry Giscard d'Estaing ayaa u diray Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe cutub gaar ah oo ka tirsan ciidanka Faransiiska cutubkaas oo kaashaday ciidanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo qudhiisa Faransiisku gacanta ku hayay ayaa taladii ka tuuray keligii taliya Jean Bedel Bokassa waxaa loo musaafuriyey isla Faransiiskii ka tuuray xukunka halkaas marka ay taagan tahay Bokassa qiyaanadii lagu sameeyey awgeed waxa uu ka aarsaday Valéry Giscard d'Estaing madaxweynihii go'aamiyey in talada laga eriyo Bokassa si kale uma taqaanida 2-0 ayaa Bokassa diray Valéry Giscard Bokassa waxa uu warbaahinta la wadaagay dukumiintiyo iyo sawirro muujinaya dahab iyo macdan ciidda ka badan oo intii uu boqorka ahaa hadiyad ahaan uu u siiyey Valéry Giscard d'Estaing sidaas daraaddeed Giscard d'Estaing waxa uu sidaas ku waayey in mar labaad loo doorto madaxweynaha Faransiiska qaxooti iyo nolol xumo dheer kadib Bokassa dalkiisii ayuu dib ugu noqday waxaa lagu xukumay dil toogasho ah kadibna xukunkaas waa la qafiifiyey waxaana laga dhigay xabsi madaxaha ku furta ah maxkamaddii ku riday xukunka dilka ah waxa uu u sheegay Bokassa isaga oo iska difaacaya eedda ah inuu cunay hilibka dadkii ay isku hayeen siyaasadda qaarkood inuusan jeclayn cunidda hilibka dadka ha yeeshee hilibka dadku uu aad u macaan yahay garsoorayaasha qaarkood ayaa dib uga joogsaday ku rididda Bokassa ee xukun dil ah ha yeeshee intii badnayd ayaa ku dooday in qofka dhadhamiyey hilibka dadku uu yahay kan keli ah ee yaqaan inuu macaan yahay iyo in kale sidaasna waxa uu ku mutaystay xukun dil ah boqorkii maxbuuska ahaa ee Bokassa waxa uu ku soo baxay cafis guud oo la sameeyey sannadkii 1993 kadibna waxaa lagu xukumay xabsi guri ilaa uu geeriyoodo sannadkii 1996 kadib muddo uu ahaa madaxweyne aan dhicin oo ku qubaysta dhiigga isla markaana ku raaxaysta keligii talisnimada alla maxay murugo iyo hoog xambaarsan yihiin sheekooyinka shucuubta saboolka ah waa inay ku jiraan degganaansho ay hareeyeen dhiig iyo keligii talisnimo xarkaha goostay ama waa inay ku noolaadaan fawdo dagaal iyo yooyootan joogto ah haddaba maxay samayn lahaayeen madaxweynayaasha jecel inay u dhaqmaan sidii Jean Bedel Bokassa haddii ay helaan awooddii iyo dhaqaalihii qarka dheer ka tuuray Bokassa